رئيس الوزراء إثيوبيا وأن ميل أدق أو حجر ومعناها ميقانو حشود وين أسكت عنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستيال meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka rasmi radio qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah رئيس الوزراء إثيوبيا وأن ميل أدق أو حجر ومعناها ميقانو حشود وين أسكت عنك. هذا اسكت عنكرين رج اسكت عنكرا جرا وبناه la taliyihii madaxweyne Farmaajo oo soo jeediyay in al-shabaab loo baneeyo xukunka dalka haddii dowladda Xasan Sheekh Maxamuud aysan iska celin karin damaca dowladda Itoobiya. Diyaaradda Masar ee Egypt Airlines oo maanta bilaabaysa duulimaadkeedii ugu horeysay ee Soomaaliya iyadoo oo duulimaadyadaasi ka bilaabi doonta garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde iyo waliba midka Djibouti. wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo sheegay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay canshuur cusub bixiyaan. waxaan maanta rabnaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatadaba gaar ahaan shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo adeegyada lacag dirista intaba aan rabaa inaan la wadaago in uu dhaqan geli doono hanaan casri ah oo wasaaraddu muddo ku hawlanayd oo ka shaqeynaysay. qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idinku haynaa warka rasmi radio waxa idin soo jeedinaya anigu Axmed Cabdi Maxamed Axmed Toronto. aan ku bilownay la taliyihii hore ee amniga qaranka ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlayay xiisada ka dhex taagan ama ka dhaxaysa dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya ee la xiriirta heshiiskii badda ee u dhaxeeyay Somaliland iyo Itoobiya ayaa soo jeedin la yaab leh soo jeediyay. Cabdi Saciid ayaa soo jeediyay haddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisa aysan iska dhicin karin damaca guracan ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya in ay meesha u baneeyaan al-shabaab si ay meel u saaraan Itoobiyaanka iyo waliba damaca ay wataan. waa sida hadalka uu dhigay. Abiy Ahmed ayaa waxa uu ku sheegay nin mayal adag oo xag jir ah marnaba aan aqoonin xishood haddii aan la iska dhicinna loo baahan yahay in al-shabaab lagu fasaxo si ay isaga dhiciyaan oo ay u difaacaan Soomaaliya. waa sida hadalka uu yiri. qofku markuu mayal adag yahay ra'iisul wasaaraha Itoobiya waa nin mayal adag oo xagjir ah waa macnaha ma yaqaano xishood waa inaad iska dhicin kartaa. haddaadan iska dhicin karin rag iska dhicin karaa jira u banee waa intaa. marka waxa ka wada marka shabaab baa iska dhici karaa dowladda federaalka ha u baneyso iyadoo iska ma dhici kartee. hadda maxaa kaloo haysaa macnaha haddaadan qarannimada difaaci karin dalka arrintaani waxay xoojinaysaa dhiirigelinaysaa niyadda u dhisaysaa kooxda al-shabaab. sababtoo al-shabaab doodeedaba ah intaas. al-shabaab doodeeda waxa waaye wadankan waxaa haysta wadamada deriska iyo niman calooshooda u shaqaystayaala. so adiga haddaad dowladdii tahay waa inaad tustaa inaad dalkan adiga leedahay matalaysid kana celinaysid cid walba haweysata. waa intaa wey. diyaaradda Masar ee loo yaqaan Egypt Airlines ayaa maanta bilaabaysa duulimaadkeedii ugu horeeyay ee Soomaaliya iyadoo oo duulimaad toos ah ka bilaabi doonta garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa safar ku imaaday magaalada Muqdisho waxaana xigi doona kulamo lagu xoojinayo xiriirka masaarida ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo waliba Masar. جمهورية مصر العربية الشقيقة، معالي وزير الطيران المدني، الوفد الكريم، الضيوف الكرام، السيدات والسادة، مرحبا بكم في مقدشو. إنه لمن دواعي سرورنا وفخرنا أن نجتمع هنا اليوم في مطار آذن عبد الله عثمان الدولي في العاصمة مقدشو للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة وهي افتتاح خط طيران مباشر بين جمهورية الصومال الفدرالية وجمهورية مصر العربية الشقيقة. وهذا الافتتاح تأكيد للأولوية التي تحظى بها الصومال لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة. wasiirka maaliyadda Soomaaliya waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay canshuur cusub bixiyaan taas oo ah mid ay wasaaradda maaliyadda ay toos uga goosan karto dhaqdhaqaaq kasta oo maaliyadeed oo la mariyo lacagaha danabaysan
ama lacagaha moobilada lagu qaato lagu isticmaalo sida EVC-ga, saadka, sahalka iyo e-dahabka. Wasiirka ayaa tusaale u soo qaatay in canshuurta Soomaaliya laga qaado ay aad u yar tahay, canshuurtan cusubna ay tahay 5% oo kaliya, halka dalalka Kenya, Ethiopia, Rwanda, Uganda, Tanzania ay canshuuraha ay baxshaan uu ku sheegay 15% ilaa 18%. Wasiirku ma uusan sheegin adeegyada bulshada ee ay sida bilaashka ah ku heli doonaan bulshada Soomaaliyeed haddii ay canshuurtaasi bixiyaan. waxaan maanta rabnaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatadaba gaar ahaan shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta iyo adeegyada lacag dirista intaba aan rabaa inaan la wadaago in uu dhaqan geli doono hanaan casri ah oo wasaaraddu muddo ku hawlanayd oo ka shaqeynaysay oo soo dhameystirmay hanaankaas oo dawladda iyo wasaaradda u suura gelin doona in cashuuraha ka dhasha iibka ama dhaqdhaqaaqyada iibka ee sida elektrooniga ama sida danabaysan u dhaca ha noqdaan kuwa ka dhaca moobilada adeegyada moobiladu bixiyaan ama ha noqdaan kuwa ka dhaca waladyada iyo kuwa ka dhaca maxaan ku dhahdaa marjanada intaba cashuur kasta ama meel kasta oo dhaqdhaqaaq iib ama gadasho ka dhaco oo hanaanka ku dhaca inay dawladdu hadda yeelatay system iyo hanaan casri ah oo lagu dabagalo lagula socdo lagu qiimeeyo lagu goosto cashuurta in ay si buuxda noogu hirgashay awood buuxdana dawladdu ay u yeelan doonto inay fuliso waajibaadkaas lagu goynayo cashuuraha iibka ama gadista. anagoo taa ka duulayna waxaan rabaa runtii inaan faro shirkadaha isgaarsiinta iyo ama meelaha kasta oo adeegyo maaliyadeed ama ganacsi bixiya oo dhaqdhaqaaqa noocaasi ka dhaco ha noqdo wallet, mobile money iyo kuwa merchant-ka intaba xisaabaha noocaasa oo dhan hay'adaha maamula inay waaxda dakhliga iyo dadka farsamo yaqaanada ee hawlaha ku hawlan inay gacan buuxda ku siiyaan inay gutaan waajibaadkooda. number 1. marka labaad waxaan rabaa inaan iyagana faro ganacsatada Soomaaliyeed ee ku hawlan inay ganacsi la xiriira iib ama gadis ku foogan inay waajibiyaan inay cashuurtaas gadista saaraan iib kasta ama dhaqdhaqaaq kasta iib oo ay sameynayaan. warkii aad kala socoteen Rasmi Radio waa naga intaan ku kulmayno warkan lamid waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.